بسم الله الرحمن الرحيم. مالي wanaagsan dhamaan ardayda sharafta meel walba joogtaan ku soo dhawaada casharkeena taxanaha inoo ah ee maadada sayniska fasalka 8aad. casharkeena maanta waxaan ku qaadanaa arday cutubka 6aad. ciwaankiisa guud waa dhulka iyo hawada sare. cutubkan waxaan ku baran doonaa laba cashar oo kala ah dayax gacmeedyada iyo urur xidigeedyada. hordhac cutubka waxaa ku baran doontaan wax ku saabsan dayax gacmeedyo, urur xidigeedyo iyo urur xidigeedyada magaca Soomaaliga leh. ujeedooyinka casharka marka casharkani dhamaado bartuhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu qeexo dayax gacmeedka, ogaado muhiimadda dayax gacmeedku leeyahay, barto urur xidigeedyada kala duwan, magacyadooda iyo sawiradooda. casharkeena koowaad dayax gacmeedyada. waa maxay dayax gacmeedku? dayax gacmeedku waa makiinado la sameeyay waxa loo ganaa hawada sare iyadoo la adeegsanayo sayruuq. dayaxu waa dayax gacmeed dhulka sababtoo ah waxa uu leeyahay khad uu ku wareego. sawirada dayax gacmeedka sawiradaas waxay tilmaamayaan dayax gacmeedyo kala duwan ayay tilmaamayaan. shaqooyinka dayax gacmeedka. dayax gacmeedka waxa loo adeegsadaa kow isgaarsiinta raadiyowga, TV-ga, telefoonada iyo wixii la mid ah. waxa kale loo adeegsadaa lambar 2 badmaaxidda iyo in la ogaado halka ay joogaan maraakiibta iyo dayuuradaha. la socodka cimilo gooreedka iyo saadaalinteeda. lambar 4 cilmi baarista hawada sare. lambar 5 khayraadka ku jira dhulka hoostiisa sida baarista macdanta, shidaalka iyo biyaha. qaab dhismeedka dayax gacmeedka. dayax gacmeedyadu waxay leeyihiin habdhisyadan soo socda. kow iltamareed oo ku yimaada ilayska qoraxda. wuxuu kaloo leeyahay awood qabasho oo wax ku qabto. wuxuu kaloo leeyahay awood gudbin macluumaadkii marka hore uu soo aruuriyay. wuxuu leeyahay awood ku soo aruurin karo. sidoo kale macluumaadka uu soo aruuriyay wuxuu leeyahay awood uu ku gudbin karo ayuu leeyahay. saddexda waxay tilmaamayaan qaab dhismeedka uu leeyahay dayax gacmeedku. waxa qabadyo meerta ah oo habaysan iyadana waxay ka mid tahay qaab dhismeedkiisa uu leeyahay. sawirkaasna wuxuu tilmaamayaa dayax gacmeed ayuu tilmaamayaa. casharkeena labaad waxaynu ku qaadan doonaa urur xidigeedyada. habeenkii waxaad cirka ku arki kartaa kumaan kun oo xidigood oo dhalaalaya oo isla markaasna birbirqaaya agal caanoodka dhexdiisa. waayadii hore dadku waxay rumaysnaayeen in xidigahani si un ay raad ugu yeeshaan nolosha dhulka guudkiisa. waxay si taxadar leh ugu fiirsan jireen cirka iyagoo ka eegi jiray xidigaha calaamado muujinaya waxyaabo la xiriira mustaqbalkooda. waa maxay urur xidigeedyadu? urur xidigeedyadu waa qaab gaar ah oo ay xidigaha dhalaalaya leeyihiin oo aad uga dhex muuqda cirka dhexdiisa habeenkii marka la eego. urur xidigeedyada aan maanta naqaan waxaa 2000 oo sano ka hor magacyo u kala bixiyay dadkii hore ee Giriigga ahaa. Soomaalidu sidoo kale waxay u yaqaaniin magacyo kala duwan, magacyo badan bay u yaqaaniin. qaababka xidigaha waxaa loogu magac daray walxo, xayawaano, geesiyaal, boqorro iyo boqorado. qaar ka mid ah urur xidigeedyada badanaaba lagu arko cirka dhexdiisa waxaa ka mid ah lambar 1 todob ayaa ka mid ah. todobku waa koox 7 xidig ka kooban oo ka muuqda waqooyiga dhinaca waqooyiga cirka saacadaha hore ee habeenkii. sawir ahaan wuxuu tilmaamayaa wakaas waa 7 xidigood oo sawirkoodu qaabka uu yahay ayaa xoolo yaqaana todob.
libaaxa iyaguna waa qayb ka mid ah urur-xidigeedyada eeg xagga waqooyi oo ka aqoonso xidigta libaaxa qaab xidigeedka hoose wuxuu tilmaamayaa urur-xidigeedka la yiraahdo libaaxa isaguna wuxuu ka kooban yahay 9 xidigood meelahaas uu ka kooban yahay sawirkaasna wuxuu tilmaamayaa urur-xidigeedka la yiraahdo libaaxa ayuu tilmaamayaa urur-xidigeedka saddexaad waxaa la yiraahdaa nin la gigay ama la xaahaya xidigahani waxay ka ifbadan yihiin kuwa todobka waxaa si fiican loo arkaa bilaha hore ee sanadka labadaas sawir waxay tilmaamayaan nin la gigay iyo laxaha ay tilmaamayaan urur-xidigeedka afraad waxa loo yaqaanaa isku talaabta koonfureed urur-xidigeedyadan waa kuwa aad u caawiya badmareennada u socdaalaya koonfurta waa urur-xidigeed ka kooban 5 xidigood badanaa waxay ka muuqdaan dhanka koonfureed ee cirka ay habeen ka muuqdaan urur-xidigeedka shanaad waxaa loo yaqaanaa xidiga cirifka ama xidiga qiblada eeg xagga waqooyi gadaasha todobka xidiga dhalaalaya waa xidiga waqooyi ama xidiga cirifka waxa uu ku yaalaa cirif korkiisa waxa waa hal xidig oo waxay ka muuqanaysaa dhanka waqooyi ee cirka ay ka muuqanaysaa xidigyahanadu waxay ku magacaabaan cirifeedyo cirifeedku wuxuu waxtar u leeyahay oo caawiya badmareennada oo sida uu caawiya mar walba waxa uu joogaa meel isku mid ah oo ah xagga waqooyi marka sidaa daraadeed dadka badmareennada badaha mar haddii ay badda ku habaabaan waxaa tilmaan u noqonaya oo hagaaya xidiga la yiraahdo xidiga cirifka ama xidiga waqooyi maadaama uu mar walba uu joogo meel isku mid ah oo ah xagga waqooyi qaybta ugu dambaysa casharkeena maanta waa su'aalo lambar 1 waa maxay dayax-gacmeedku qor shaqooyinka loo adeegsado dayax-gacmeedka lambar 3 waa maxay urur-xidigeedyadu magacow urur-xidigeedyada dhammaantood lambar 5 sidee ayaa xidiga cirifku u caawiyaa badmareennada casharkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaa aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin ardayda